ayaan leeyahay horta ku soo dhawaca cable TV madasha aanu taaganahayna waa buurtiga Calibaax waad u jeedaan dabcan khadray buuro badan baa inaga dambeeyo markaan soo soconin wad yara baqaysan inaad jarka ka dhacdo oo ku soo dhaweynaya khadra wal aad baan dhawahay aad baan fiimaad ma ku salaamay adiga baahda cable TV iyo bulshooyinka caalamka iyo fanaaniinta Soomaaliyeed meel kasta joogan waxaan leeyahay dacaaw iyo maanta iyo buurtiga Calibaax ayaan waxaan ku warisaa burada ka saaran aad iyo aad gubaan hayaanan guurin harkayga lagu gamaa harkayga lagu heesto jacaylkana lagu helaa harkayga lagu gamaa dabcan ay heestaa jacaylkana lagu gartaa galol baan hayna saba gubaan hay liicin abid كل قبت ملي عذاف لها طبعا سيدي لا يعني اديا ودنا يلاتي سوما هركيسا لو غما جعيل كان لو غرتا جعيل كان لو غرتا هركيسا لو غما جعيل كي حقوقه مغنانبا دبع سوما قف جعيل اديات ان خضر دبعه waxay fanaanad muddo badan fanka ku jirtay waxaana dahay dadkii aasaasay kooxda la yiraahdo xidigaha geeska si fiican iyagoo aan xidiga jirin number 1 ka soo bilaabay ee iminka magaca xidigaha dadkii u soo dagaalamay macnaha soo aasaasay waxa jirtay dad kooxdii ka baxday tabaca badan iyo xoog badan oo kaaga baxay maxaa keenay in ka baxay waxa keenay wallahi waxa badan baan isku afkarin waay muddada wax badan waxa jirtay aan adkaysanay oo aan islaha oo qushi danta kooxda ka muhiimsan anoo la xajaalada kooxda eegaya ba waxaan arkay in haddana wax alla sida waxaan anigu aan u wado iyo waxaan anigu qalbiga ugu hayo inaan layba arigo waxay arkeen bacadu waxaan arkay dadkii igu wada foogan baaniga mid alla mid waxna dhexmarina ma jirto ha u darnaadan labada nin ee aan ku sheegay kole qoraalkayga Facebook waxa san Saleebaan Dhuxul iyo labsa iyo ninka Axmed Weli misigshaanka miisiga suma iyo absishanku isagu cuna qabateen sideeda ah ayuu production u saaray oo ay kamid tahay heesahayga u haysta up to now oo 2017 bishii 2 sanadkii dhaafay sanadkan 2017 bishii 2 uu ii tumay sanadkaas heesuu tumay ilaa abtuna u haysta bal maxaa ku dhajiyay kuna soo soo saaray hadaan ku joogsi ahayn fanaankan sidiisaba waxa inta badan barakshirka saaro horta qof qarsoomay sameeyay dabcan fanaanad maanta magaceedu adduunka laga yaqaananayo dabcan laakiin waxa aan u sheegaya bulshada ma qurux badna marka aad aragtay culayska noocaas wala iskaga tagaa dabcan la qofka isku kalsoonay wadadu mari kara laakiin qofka aan isku kalsoonin isagan ku ogahay halka isaga dabcan in xaga abwaanka isagana xaga abwaanka wuxuu keenay sheeko isku dhufashiye haye waa ka ugu daran isagu waxaan ku wari isbidayay ma garanaysaa inuu dimeesha awood haysto laakiin aniga fankayga awoodayda iyo codkayga dabcan soo garan marka abwaanku wax kale muu keenin wuxuu keenay inuu fanaaniinta isku kaayo dhufto oo isku kaayo garaaco uu doonay inay dhibaato ka timaado dil iyo ma garanaysaa dadan wax soo wada cunaynin oo walaal ahayn marka waxaan tusay anigu marka aan ka tagay kooxda waxaan ahay asaasihi dunida boo layga garanay aadiyaad laakiin waxaan tusay inaan anigu kaliga is wadi karo oo aan hadan doono iyaga iyo qaar kale oo kala aan sameyn karo qaar iyaga la mid ah abuuri karo taan awoodeeda waan leeyahay sax samad garan marka abwaanka iyo musicianka labadaba ana u daayay meesha bal halka ay gaarsiiyaan waan ku faraxsanay markasta hadii horumar sameeyaan aniga waa kooxdeedii aan ku soo jiri jiray laakiin maanta kamid ma sax waatay waxaan jecel dhanka ay heesay inaynu ku sii socono heestan heesta ku xigtaan jecelahay inaynu soo qabano waayo dabcan aad bay u jecel yihiin daawadayaashu inay heesahaaga maqlaan heesta ku xigtaan la rafiiqi karaysaa كل قف كورب بد لا رفيقسا كان كوربين ما جرت هاي magaalada kala marsan ni walaba ninka jecel ki kurabo iska raaxo hay duunka ilaan adrab ma jirto dabcan qof way soo wadaan caadiya wana la soo diiday qof uu baahan marka intii rabto ma rabna fika inaan rabin ma rabna inta kale hayna deeqay soma dabcan khadra muddo badan baad ka jirtay taariikh badan iyo waxyaabo badan iyo jawiyo badan hawlo badan horta kugu ma yar waayo qof maanta fanka looga daba fadhiisan karo la wareysan kara inta badan heesay aad rabay fiimayaan ka dhixgalay inaad ku soo burto fanka may anigu adaa igu jira adaa igu jirtaan wadanta xaslaadii lafteeda aad ku soo dhawaad maslaha may waxa sirada khadri kugu jirtay waxba kaama maqnada wadanta sama haahi dabcan hadii maanta telefoonada loo baahdan qofka la daba fadhiisan inta badan heesay ku xigmada ay ku fadhiyaan marka khadra la ilaado heesay aan bilaa xigmada aanad qaadin صح حتى انت افكر كنت جرتي وحي كوغو لا ياب كبدنا ايه معناها مسخخداده اي قادي ويدي كل سؤال
محمد soo saari maayo laakiin wax badan baa jiray oo waxaan ku wardiyay iyagu la yaab ka badnay haye sida maanta halkeen fadhino kale haye waxaan sari mala xagaas aad loo boodi doontaa wadiga cabsadeen ka soo kacnay si xoog leh haye kursigaan sari ku risiiban hada xasri fiima masuula iyada ka buur man gashil wadin ha dabcan waxaan isfiri jawiga quruxda badan ee micnaha buurtii iyo qawiyadii iyo waliba dhirtii iyo sa ay wada dambeeyaan buurtiga cali bax dabcan waa buur taariikh oo maanta iyo si daaniga lafteeda meel hore warkan weligii ma arag taariikh aad u badan bilada abwaana badan iyo hobolo badan iyo in badan ay ka gadiyaan waxaan sir khadra meesha ugu haboon ku wada qaadan kartaa barnaamij qurux badan halkaas meesha quruxda badan ee ay maanta soo arko wana ku soo dariso kuma qanacno kulli Soomaaliland meel badan waxa jira qurux badan dabcan oo ayna dadkeena iyo dadkeena garanay waxaan oranayaa waa soo boqdo dalka Soomaa ina walba dalka hooyo soo arag mise marka tolo qurbo joog ay noqdaan bay dadku soo raadiyeen oo ka markay wuxuga yar jooga dalka garanaya waxaan jecelahay heestan heesta ku xigta khadra inaad adigu